الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. walaalyaal xildhibaanada marti sharafta meesha joogta darajo kasta ay ku joogaan bahda saxaafadda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. salaanka bacdi waxaa maanta dib ugu soo noqday magaalada madaxda dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Ducaale Geelaxaaf waxaan ku nimaday si nabadgelyo ah kadib markii aan ka qayb galnay shirkii amniga qaranka ee lagu qabtay Kismaayo Baydhabo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ku soo dhamaaday runtii natiijo aad u fiican warmurtiyeedkiisana aad ka maqasheen idaacadaha. waxaan rabaa fursaddan horta inaan uga faa'iideysto inaan u mahad celiyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo xukuumaddiisa iyo baarlamaankiisa iyo dhammaan shacabka Koonfur Galbeed gaar ahaan Baydhabo soo dhaweyntii diiraneed ee noo sameeyeen annaga iyo wafuudii kale ee tagtay meesha iyo sida xilligan adag ee Ramadaanka ah ay u muujiyeen juhdi walaaltinimo ay ku jirto saaxiibtinimo ay ku jirto oo aad iyo aad u heersareeyay. waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin waan idin ognahay. intaa kadib shirku wuxuu bilowday 3 bisha waxaa daafuray madaxweynaha dowladda federaalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka soo qayb galay hay'adihii ay khuseysay ee amniga oo dhan waxaa lagu gorfeeyay qodobo badan oo dan u ahaa dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waxaana ka soo baxay warmurtiyeed tilmaamaya ka hadlaya habdhaqanka iyo sida loo socodsiin doono howlaha amniga howlaha doorashooyinka mustaqbalka dhow ka dhici doona dalka iyo qaabka wax qaybsiga kheyraadka dalka. dhammaan qodobadii laga hadlay dhinacyadu waxay isugu afgarteen si aad u heer sareysa halkaas ayaa la isku soo marxabaysiiyey sida aad la socotaan xal oo dhan damaashaad ayaa lagu jiray wixii ka dambeeyay 12 habeenimo markaasoo lagu dhawaaqay ama la akhriyay warmurtiyeedka loogu talagalay meesha. annagu delegation ahaan ka Galmudug ahaan waxaan ka qaadanay kaalintii nooga aadanayd wax badan oo guulo ahna waa kala soo hoyanay tafaasiisheeduna dib ayay ka imaan doonaan. waxaan mar kale u mahad celinayaa shacbiga madaxdii nagu soo dhaweysay garoonkan Dhuusamareeb mas'uuliyiinta kala duwan ee xildhibaanada iyo wasiirada leh shacbweynaha Dhuusamareeb ama deegaanada u dhow ka yimiday sida xamaasadda iyo diiranaanta lahayd ay noogu soo dhaweeyeen garoonka Dhuusamareebna aad baan uga mahad celinaynaa. waqtigan adag ee Ramadaanka ay lagu jiro guul iyo gacmoon isqabsanaan isku ognahay waxaan u dhownahay dhinaca guusha waanu ku dhaqaaqaynaa dhammaanteen haddii la yiraahdo guul iyo afgarad.